بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضيدا فصل كاللحاد إن شاء الله وحنا كنا كسو قدبين دونا عتبكينا أفراد أو كهدلاي جيرارو ومركي ورا waxaan soo dhamaaday cutubkii saddexaad oo ka hadlayay gabayada way cutubkana waa cutubka afraad oo isna ka hadlaya geeraaro way waxaan gali doonaa casharkiisa koowaad cutubka afraad casharkiisa koowaad ee maadaduna waa Soomaali fasalka lixaad casharka koowaad ee qaadan doonaa wuxuu ka hadlayaa ama ku saabsan yahay geeraar waana geeraar baraare la yiraahdo baraare ee magaciisa la yiraahdaa waaniga xamsi cabdi casharkan aynu gali doono bogga uu ku yaalo boggaada daabacan waxa weeye 105 weeyaan 105 way ardayow markaad casharkaaga dhageysato insha Allah waxa muhiim ah ama aad u wanaagsan inaad ku wareejiso dhiganaha gacanta waayo hadii aad dhageysato oo aad halka kaga tagto wax allaale waxaan macnaheedu u sameeynaya ma jirto macnaha ugu wanaagsan ee ku jira laakiin casharkii aad dhigatay waa inaad qortaa si fiican aad u qortaa walibana ogow waxa la qoranaa lama ilaawo kana walibana waa geeraar waana walibana la xifdiyaa insha Allah waxaan rajeynayaa waalidka markay ku dhageystaan inay ka dhageysan doonaan 10 bayt oo kale ama 10 line oo kale insha Allah inay kaga dhageysan doonaan ama adigu aad ula tagi doonto qof iga dhageyso ku oran doonto insha Allah adigoo qaybsanaa insha Allah dugsiga isku iman doono imkan waxaan toos u gudgali doonaa hordhaca geeraarka way geeraarkeena wuxuu ka hadlayaa casharkeena ama ku saabsan yahay geeraar la yiraahdo baraare waxay tahay wax lagu dhex tagi doonaa geeraarka way geeraarkan waxa tiriye abwaan cabdisalaan ismaan diiriyo oo ku magac dheer abwaan ceeri waxa uu abwaanku ku dhashay tuulada dhagax madow oo ka tirsan gobolka Selel bariidowba gobol oo dhigay markii hore magaalo ahayd magaalo madaxdiisuna waqtigii hore waxa la jiray gobolka awdal bal isku jiray Boorame magaalo madaxda ahayd laakiinka Selel wasayl caawiyeen way yahay abwaanku waxa uu leeyahay suugaan aad u fara badan geeraarkan waxa uu kaga hadlayaa horumarka iyo baraarahu in ay yihiin wax loo dadaalo balse aanay iska imanin waxa sheegayaa tacabka in marka doonaysa inaad meel wanaagsan aad gaadho hadaad doonaysa arday inaad su'aalahan wanka ama ardayga ugu sareeya noqoto intaad casharadii aad dhageysato macalinka sharaxaad iska laabto ana dib u eegin ku gaadhmaysid baraare ama ku galmaysid kaalinta ugu sareysa laakiin casharkii macalinku soo dhigay maadada doonto ma haatay hadii markaad macalinka dhageystay sharaxaadiisa aad qorato dhiganaha gacantana ku wareejiso insha Allah waxaad noqon doontaa wad ku aflixi doontaa soo kale wuxuu leeyahay nolosha adduunyaha hadii aan iska fadhino waxa la laaban xoolo kuma yimaadaan bay Soomaalidu ku maahmaahdaa saas darteed waa in shay kasta oo la qabanayo loo tabcayo ama waqti la galiyaa si ay midho inoogu dhalo waqtigaas way geeraarka imkana toos gudageli doonaa abwaanku waxa uu ku bilaabay geeraarkiisa geeraar waan kala baadnayo buugiisaan iska daayayo waan ka baajay naftayda taxiiroon bulshadayda baraaro ugu tilmaamo inta aanan bidhaamin bayaankayga sheegin wuxuu inta sheegayaa inuu geeraarkii bariyahan ama waxyaabihii uu tirin jiray iska yar joojiyay laakiinse uu haddana rabo taxyar oo bulshadiisa wax ugu sheegayo fariin ugu gudbinayo inuu sheego raacay bayaankayga intaanan bayaanka sheegin tixdan ay ku fadhido baryadii rabbiga iyo bismillaahi aan ilaahdo aan baryada qaatee bulshayso nabad maaha ilaahay boqor weeyiyo isaga ayna barbaarshayo baahideena daboolo oo bilaadkoo dhan abuuray wala markaan tixdii yaraad bilaabo intaanan kulay markasta wax wanaagsan inaad salaanto dadka meel ku timaado marka wuxuu leeyahay bulshadeedii bartaan salaamo baryadii rabbiga iyo bismillaahi aan ilaahdo bisinka u qabsanaya aan baryada qaato aan baryadii aan salaam weeyaan bulshayso nabad maaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واي إلهي بقر وي ديسك إلهي بقر كي تريد أن أبوري ويان إلهي سبحانه وتعالى عد
ka awood weyn oo adduunyo joogta iyo cid kale meel kale joogtaana ma jirto isagaa ina barbaarshay ilaahay isagaa ina koriyey isagaa ina kaalin geliyey ilaahay isagaa intaa ina leekeysiyo barwaaqada iyo baraarahana ina siiyey baahideenana daboolo oo inagu masaakiinta yar bayna waxa ma qabsanin hadduu ilaahay inoo dhib yaraynin waxyaabahan adduunyadan guryahan aan dhisanayno iyo waxbarashadan aan baranayno iyo dhulkan aan iska soconayo waxaan hadduu ilaahay inoo dhib yarayn waxba inagu mayna qabsan ilaahay baa markaa baahideena daboolo ilaahay baa ina asturaya bilaadkoo dhan abuuray bilaad waa af carabi kelmadda bilaad laakiinse Soomaali waa dhulka oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala baa abuuray dhammaan waxa adduunyada kor marayo oo dhan Allah baa abuuray subhanahu wa ta'ala ayuu noo sheegayaa abwaanku kulli abwaanaduna meelo badan ba wax ka eegan isagu laakiinse xagaasu wax ka eegaya waa meel aad u wanaagsan waayaan ku sii socono waa inaan ka baqanaayoon balantiisa adkeynaa bilicdeeda adduunyada waa bilaash ogaado oo maanta baabka la joogiyo bari waa kala gaaro kolba waaga baryaya yaana waxbuu biiriyaa oo bishaaru hor socdaa intana wuxuu inoo sheegayaa abwaanku halkii hore waa inaan ka baqnaayoon balantiisa adkeynaa beedkii hore si daba socotay way beedkan wuxuu ka bilaamayaa bilicdeeda adduunyadu waa bilaash ogaado adduunyadan dhalaalkan iyo waxan waa lacib iyo lahwi oo ilaahay quraankiisa nagu sheegay oo waana bilaash oo maanta hadaad inta doonto aad lacag leedahay biri waxa ka raacaya waa go-yare cad ee lagu duubaya ayaa ka raacaya iyo camalka ay kala sameysay laba shay baa ku raacaya waa camalkii aad sameysay iyo maal adduunyadu waxa ka raacaya camalkii aad sameysay iyo go-yare maalkaagii aad lahayd lagaga siibiyay waa bilaash ogaado maanta baabka la joogo maanta waqtigan la joogo bulay maanta la joogiyo bari waa kala gaaro kolba waaga baryaana waxbuu biirinayaa oo bishaaro hor socda salaam maanta joognaa bari waxbay soo biirinaysaa bishaaro hor socotaa nabad iyo barwaaqo ay bishaaradaas ka mid yihiin iyo caafimaad qab iyo rabadaan ay ku jiraan tusaalahaan oo kale saas oo macna waa ka sala bariyaaba inuu hor socdaan wax wanaagsan ayaa buu leeyahay bani aadam ka nooli haddaan la iskugu baaqino talo la iskugu biirino barbar loo wada jeedsan bulsho weyntu iskaashan baawar yeelani mayse bilaash weeye warkeedu bohoryowga tahriibkiyo badda la isku guraaye barbaarti ku idlaatay wuxuu leeyahay haddii aan bani aadamka de wada noolaayna wax wada qabsanayo ayna isku tiirsanaano aan talo isweydiinin de wax inoo qabsoomaya ma jirto tusaale ahaan haddii aanad adigu ardayda kala kaashanin oo aanad su-aalo haddii kuuga adkaatay aanad weydiinin haddii isaga aanad caawinin de waxba inoo qabsoomi waayaan talo la iskugu biirsha ayaa wax keenta way barbar loo wada jeedsan dhinac haddaynan wada jeedsan oo aynaan adduunyada dhinac uga wada jeedsan de wax inoo qabsoomaya ma jirto awoodeeniba waa iska gaaban tahay way bulsho weyntuna ayna iskaashan way de awood bay yeelan mayso intaas wuxuu ku xadeynaya haddaan las waxa la wada qabsan la iskaashan isbarbar taagin waxba yeelan mayno way boholyowga tahriibkiyo inta wuxuu ka soo baxay wax wada qabsiga haddana wuxuu yidhi boholyowga tahriibkiyo badda la isku guraaye barbaartii ku idlaatay boholyowga xiisaha iyo galgacalka inuu hayna tahriibka iyo waxyaabahan buu haddana inoo sheegayayo badda la isku guraaye barbaartii ku idlaatay dadkeenan dhulkoodii ka yaacaya dhul ay dad kale ay wanaajisteen oo qurxisteen ku yaacaya barbaarta dhalinyartan bilaheeda wadankooda iska yaacsan wadankooda aan jeclayn dal kale iska jecel warka qiir Japan bayna hayso dalkeedii bay iska yaacana dal kale ku yaacna Allah haynaga qaada waxaas way ma ka soo bogsanaayo wuxuu leeyahay wixii aanu taariibinay waxa uu ka soo bogsanaayo barya ma iska nacnaayo ma ka soo bogsanaade waxyaabaha ay sameyn jirnay hore oo xagga hore ku soo sheegay wali marka baryo ma iska nacnaa ciidahan aynu hoos dhigayna gacanta ee dawladaha iyo maxay hay'adaha waxaan iska deynayo ma iska nacnaayo beledkeeni buuxee marka macnaheedu dhul shayir joogu sheegay beledkeeni buuxee dhulkeeni beled waa iyaduna af carabi marka wuxuu dhulkeeni buuxay macdantiisu bislaatay intiyan ka baadhno ma ka soo bixinaayo bandhig ma u furnaa
ila wadankeeni ama dhulkeeni macdantiisu bislaatay ee maashada allaha intayna kala soo baxno bandhig ma furnaa almaana bandhig xayisiin ma sameeyo dhulkeeni wax ma kala soo baxnaa ma tusnaa dadka inay nahay dad dhulkooda wax kala soo baxay tusaale ahaan buuraha in macdanta ka qodanaa ceelal bayna qodanaa beerayna samaysana waxaas oo dhan baynu markaan samaysano deetana waxaan u dhigaynaa xaflad weyn oo aan dhulkeeni aan ku faano inaan waxbaan qabsanay adduunyadu si ay noo aragto deetana kadib iyaga ku baahanay marka la arko adiga wax qabsanaya kuwa kalena iyaga ku baahanay marka bilaadanka la isku baahiye iyaguna ku baahdaan baa la isku eega way haddaan beeraha oodno bedel iyo galey iyo basal iyo tamaandhiyo babaygiyo casacasaay iyo bartiiq ku abuurnoon buuraha iyo banaankaba bustaan aan ka samayno barwaaqiyo wanaag baan ku bariisan lahayn wuxuu leeyahay haddaan beeraha soo oodano dhulkeeni ooda lagu wareejinayo ma haddii aynu ka samaysano weli dhul aan wax ka qabsano bedel iyo galey bedel waa hadhuudhka la beeree tusaale laxooxda marka waxa laga sameeyaa inta badan hadhuudh baa laga sameeyaa waxa la isku daraa hadhuudh iyo maxaa dhahdaa hadhuudh iyo waxa isku darnaa daqiiq ba isku darnaa dadna waxa noo soo baxaa laxoox baa noo soo baxda ama indha badan way bedel iyo galey malay garow iyo galey ma beeranaa wuu leeyahay basal iyo tamaandhiyo waa iyaguna waxa weeye waa khudaartii weeyaan basal iyo tamaandhiyo babayga casacasaay iyo babayguna waa khudradda aynu cunay lafta leh ayuu ka mid yahay bartiiq ku abuurnoon bartiiquna waa nooc khudaarta kamid laga yaabaa inaydaan arkin laakiin uu ka baxo xagga koonfurta ee Soomaalida uu ka baxo buuraha iyo banaankaba bustaan aynu ka samayno walaay buur iyo banaan meel kasta oo dalkeena kamid ah bustaanada wax lagu beeray aynu waxaan ku beerayno aan ka samayno barwaaqo iyo wanaag baan ku bariisan lahayn markaan dhulkeeni garow iyo galey iyo basal iyo tamaandho iyo maxayna bartiiq waxa ka beerano waxaan ku bariisan lahayn farxad iyo reereyn iyo barwaaqo iyo wanaag inagoo cidna bariyeen inaga leena bariyeen waxaas dhan sameyn lahayn way farqi waa bar madow faqri waa bar madow bugto weeyu ku haysoon laga baanan karaynin waa inaan ka baxnaayo diinta aan baranayo iskuulada ku biirno dadaalka la badshaa wuxuu leeyahay faqri almaana qofka aan waxba haysan waa bar madow kugu ooleyso qofka cawlan waxa haysanaysa aad noqonaysa aad haanaysa wax ma haystada bugto weeyu ku haysoon markasta waxaad haanaysa qof liito oo aan waxba laga soo qaadin aan dadka la sinayn baa haanaysa wax qaad way laga baanan karaynin deecna ka dul qaadaysa haddana waa nigi lahayn xagla laaban xoolo kuma yimaadaan haddana adigu shaqaysan wala tacabkaaga dhididkaaga aanad wax ku qabsanin deed waxba ku qaban mayse saambad waxaad haanaysa bugtada iyo faqrigaas waxaad ku jiraysaa marka waxa wanaagsan inaad adigu wax qabsatay aanad cidna gacmaha hoorsan waa inaan ka baxnaayo diinta aan baranayo iskuulada ku biirno dadaalka la badshaa walaayda marka waxaan dhankaas faqriga waxaan marka sameeyno waa in diinteena aan baranaa iskuulada aan baranaa dadaalka la badiyo haddii aan dadaal la badinin waxba noo suurooymayaan wax walba waxa naga noqonayaan baraasq bay naga noqonayaan marka arday inaha waxa nagu eeg geeraarka sharaxadiisii walow aan meelaha qaar ay dhici karto inaan guuray waxa loo baahan yahay inaad si fiican u akhrido markaad akhrido waad fahmi doontaa macnihiisu isagaaba ismacnaynayaba waxaanu geli doonaa weydiimihiisii sharaxad raalahaada waxaan geli doonaa ereyada ku jira macnahooga geeraarka ereyada ku dhex jira waa baraare waa barwaaqo bayaan hadal cad baajin joojin waa baaq hadal ama yeedhmo power kelmadaas waa ingiriisi weeyaan power laakiin awood Soomaali waa awood weeyaan boholyo waa xiisi ama kalkacal waa bedel hadhuudh bartiiq nooc ka mid ah khudaarta aynu cunno ama dalkeena ama dhulkeena ka baxda in kasta aan xagan aynu joognaa inta badan aan ku arag laakiin koonfurta